Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to English with Susman. An integrated course for beginners is what we have intended for beginners or the whole beginners wherever they are. So our topic today or our lesson today is grammar lesson. Exercise 1. Exercise 1. Use of a and an. Use of a and an. Write a or an before each of the following words. Number 1, cup. 2, mouse. 3, man. 4, arrow. 5, elephant. 6, door. 7, boy. 8, armchair. 9, pencil. 10, Indian boy. 11, orange. 12, window. 13, house. 14, girl. 15, chair. 16, eagle. 17, African picture. 18, old man. 19, engineer. 20, idiot man. waayahay caawa waxaynu leenahay cashirkii naxwaha ahaa haddii uu eebba ka raali noqdo exercise-kana ugu horeeyay waa layligii koowaad ee aan soo geliyo cashirkan hore u baxay isticmaalka ama adeegsiga iyo an buu ku saabsan yahay article-ada loo yaqaano indefinite article exactly waa kuwa aanan caddayn ama aanan qeexnayn baa loo yaqaanaa definite article wuu noo dhiman yahay hadduu ilaahay ka raali noqdo qeybaheeni kale baan u gudbi doonaa right baa lagu yidhi waxaad ku qortaa a oo an before each of the following words ka hor erey walba oo soo socda before each of the following words erey walba ka hor waxaad gelisaa a ama an midkood baad gelinaysaa qaybteeni koowaad waa saas isaga cup buu ka bilowday cup waa bakeeriga ama koobka haddii aad u taqaano mouse waa bahasha walwalada la yidhaahdo jiirka u eg ama walwala sandeer man waa ninka arrow waa fallaarta elephant waa maroodiga door albaab boy waa wiilka armchair waa kursiga garbaha leh hal nafarka qofka ku fadhiisto pencil waa qalin qoriga Indian boy waa wiil hindi ah oranjo window daaqad house waa guri girl waa gabar chair waa kursiga eagle waa gorgorka African picture sawir afrikaan ah old man nin duq ah engineer waa injineerka idiot man nin mangaab ah ama dabaal ah